munaasabada qaran jabida dufcadii toddobaad ee ka qaran jabisa jaamacadda Armas oo lagu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa ardayda ku qaran jabinaysa tiradoodu ay dhameyd 414 arday oo ka kala qaran jabiyay qaybaha kala duwan ama kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaasi lagu barto waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici hogaamiyaasha asxaabta siyaasadda ee kulmiye ucud iyo wadani boqolaal arday oo iyagu isugu jiray qalan jabinaya iyo asxaabtooda ay ku soo marti qaadeen marti sharaf isugu jira waalidiin iyo madax dhaqameed culimo awdiin iyo qaybaha kale ee bulshada gudoomiyaha jaamacadda Armas ee Soomaaliland Ihsaan Umar Ismaaciil oo munaasabadaasi khudbada ka jeediyay ayaa ka warbixiyay qaybaha kala duwan ee ay jaamacaddu waxbarashadeeda ku salaysay iyo ardaydan qaran jabinaysa qaybaha ay dhameysteen Ihsaan Umar Ismaaciil waxa uu sidoo kale halkaasi kaga dhawaaqay kuliyada cusub iyo qaybo waxbarasho oo ay jaamacaddu soo kordhisay sida waxbarashada masaafada ama se lagu barto waxa loo yaqaan distance-ka waxaana hadaladiisii kamid ahaa congratulate all of you for your attaining maybe for some of you your first level and a number of students who has gained their second degree. So congratulations. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa hambalyo u diray ardaydan qalin jabisay isagoo oo kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan waxbarashada oo aanay ka hadhin marka koowaad Ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan mahad u celinayaa jaamacadda Armas madaxdeeda hawsha badan soo gelisay sida ardaydan ay soo gaarsiin lahaayeen waxa kale oo hambalyeynaya waalidiinta ku soo tabacday ardayda maanta halkan loogu dabaaldegayo oo maalin weyn maanta iyagoo maanta oo ah nin walba adduunyada maalin buu leeyahay waxaan si gaar ah u sii hambalyeynaya ardayda maanta halkan qalin jabinaysa wiil iyo gabarba oo maalintoodii farxadooda ay tahay oo leeyahay hambalyo geesta kalena dhamaadkii munaasabadani waxa telefishinka Somali News la hadlay isla markaana dareenkooda ka warbixiyay qaar kamid ah ardaydii ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waa kuwan qaar kamid ah ardayda oo iyagu dareenkooda cabiraya qalin jabisay gaar ahaan hablaha magacaygu waa Samsom Ibrahim Maxamed jaamacadda ka qalin jabisay barkoor dareenkayga aad iyo aad buu faraxsan yahay waayo waxaan gaaray maanta guushii waa mar labaad anigu waxaan ka qalin jabiyay qaybta departmentka postgraduate project planning and management marka waa farxad labaad ayay ii tahay inaan maanta mar labaad anigoo caafimaad iyo nabad iyo wax walba haysta inaan mar labaad ka qalin jabiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii igala qayb qaatay inaan guushan gaaro oo kow ka yahay odagayga Xasan Cabdi Nuur iyo caruurtayda hooyaday aabaha iyo familygayga asxaabta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay nolol iyo farxad insha Allah anaguna sakariye waad ka qalin jaamacadda hay qaybta ka qalin jabsado waxaan ka qayb jabiyay qaybta ICT-ga information communication and technology imsa sanado dhiganaysa waxaan dhiganayaa muddo 3 sano ah dareenkayga hadii aan soo kulli ma qiyaasi karo oo maalin nin badan sugayay aan aad ugu faraxsanahay ugu horaan waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo waalidkayga ugu horeyso hooyaday Samsom Ismaaciil Xaaji Cali abartay Xalimo Ismaaciil Xaaji Cali iyo dhammaan familygayga oo dhan aan u salaamayo masii wadanaysa waxbarashada mise hay'ad insha Allah kulli hawan sii wadanaya wax rajaynaya inta in ka badan inaan sii gaaro waxa lagu dacay dhalinyarada inta badan jaamacadda ka qalin jabiyay markay qaastaan shahaadada yar bay xagga shaqooyin iyo xaraadiyeen dalkana shaqo badan shaqo la'aan badan ka jirta ciyaarintaas soo artayda kulli way jirtaa laakiin bilaadanku isku mid maaha sida shaqeena furdaan oo sameeyeen baan bilaadanku oo sameeyeen kulli aanu shakhsi baan ahay waxaan jecelahay waxbarashada si wato dalkana oo aaminsanay wax soo saar ma ku sameynaysaa waxyaad baratay oo adigu ma haysan fikir aad doonaysaa inaad wax ku abuur insha Allah kullaha munaasabada qalin jabinta ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Armas ayaan ahayn markii ugu horeysay ee ay tirinta laga ka qalin jabiso waxaana sanad walba jaamacadani ka baxa oo markaasi aqoonta heer jaamacadeed ka dhameeysta boqolaal arday oo ka qalin jabiya faracyada kala duwan ee jaamacadani ku leedahay Soomaaliland Salmaan Cabdi Ali Somali News TV Hargeysa